بني آدم كوبا بلوغيسي هوري la soo daawaday barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 باقين برشدا ددوينها باقين waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Somaliland waa barnaamij xiiso badan oo ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoon-yahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal-abuurka la yimaada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داود كسر دوادا برنامج كحساب بدن ترتك على بورك التكنولوجيا دا سنة كلا كون يكوبي لباتن برنامج كان برنامج لوجود ترى جلي رجلينتا أقوياء كي يدليرت كلا دوان جودهم با قبل هذا كلا دوان السومال لان الدنا إسلام كاسينا برتي أقوانت التكنولوجيا دا أي وها فلونيسيا إسلام كاسينا مال جلينا يا wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo bankiga caalamiga ah ee Premier Bank wana barnaamij ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoon-yahan tiro badan iyo ku guuleysan doona lacag gaadhaysa $18,000 oo lacagta Mareykanka ah bani aadam kuba bilowgiisi hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin برشدا ددوينها باقين برشدا ددوينها إلا باهيايو لبالارياي إلا باهيايو لبالارياي بلانتنوا بقول كيبا بقول بقايو قالين lagu baratama waxaan marnaa barnaamijka qaybi ugu xisaab badnaa waa qaybtii practicalka ama ay tusoo taabsi adeegyadii iyo barnaamijyadii ay hindiseen aqoon-yahankaasi dhinaca tiknoolajiyadda hal-abuurka ka sameeyay ayaan dib u bilaabi doonaa si tusoo taabsi aan u daawano tartanka hal-abuurka habeenkan caawa waxaa tartami doona 3 group oo la yimid dhinaca hal-abuurka tiknoolajiyadda casriga saddexdaasi group waxay kala yihiin ama ay la magac baxeen kooxaha So Smart Solution ساعد صفتي يسدو كله سومالي كودريس waxaan u yeeri doonaa kooxdii horeysay oo labadii stage hore martay stage-kood saddexaad inay maraan kooxda So Smart Solution waxa jecel halka inay yimaadaan kadibna ay ballantusaan wixii ay sameeyeen oo dadku ay la daawadaan oo soo dhaweynaya kooxda So Smart waxa jecel saabkeed ku soo dhaweysaan barnaamijkaygu wuxuu ku saabsan yahay wasaaradda waxbarashada gaar ahaan xafiiska imtixaamaadka iyo shahaadooyinka qaranka hore u sheegnay laba qaybood kala qaadayna qayb waa adminkii qaybna waa qaybtan ugu talagalnay inay ardaydu imtixaanka ka eegtaan haddii qaybtan aan ku horeyno ardayda oo aan eegno hadduu ardaygu tusaale ahaan oo kale mobile isticmaalayo qaab ku soo bixi lahaayo oo kale wanigii hore u sheegnay waa responsive oo ardaygu markuu mobile isticmaalayo sidan buu ekaan doonaa insha Allah hadduu dugsiga sare u yahay oo ku dhufto oo dhaw dugsi sare aan ahay imtixaankii ma rabtaa inaan eegto waxa uu soo baxaysa qaabkan ilaa uu halkii wax geliyo button-kan active ma noqonayo oo waa disable wada aragtaan marka haddii tusaale roll number-kiisa uu garanayo oo kale oo uu geliyo roll number-kiisii oo uu dhaho ii raadi waxaa la ka soo baxaysa natiijadii uu imtixaanka keenay oo celceliskiisii iyo grade-ka uu keenay inuu baasay inuu dhacay oo kale magaciisii magaca hooyadii iyo maadooyinka wuxuu keenay meel kale ma geli karayo oo awood u maray inuu meel kale galo hadduu menu-ga tago oo home ku dhufto wuxuu dib ugu noqonayaa maxay interface-kii hore ardayda lagu talagalay marka kaas si kooban waa ardayda haddii certificate-ka verification ku sameynayo tusaale ahaan kale ogaanayo certificate-kiisii oo kale isna waa responsive oo wuxuu siinayaa hab hadduu roll number-kiisii garanayo oo kale ama certificate number-kiisa hadduu garanayo oo kale ayuu ku eegayaa tusaale ahaan oo kale hadduu eego
roll numberka hadduu ku eego oo uu dhaho ii raadi xogtaydii waxba usan bixi maayaan sababtoo ah waxa khaldan roll numberka marka haddaan midh ka reebo oon raadi dhaho waxaa usoo baxaysa xogtiisii oo verification oo intuu haystay meesha uu ku dhashay iyo magaca xogtiisii oo dhammaystiran kaasi waa habka ardayga marka wax eeganayo oo mobile ahaan uu isticmaalayo uu eegayo hadduu computer isticmaalayana dee waa iska caadi sida caadigaad buu isticmaalayaa oo way u fududahay waay qaybta adminka waa qaybta ugu ballaaran systemka haddaan galo dashboardka waa kan marka wuxuu ka kooban yahay laba marxaladood ugu muhiimsan inaad diiwaangelisay ardadii iyo inaad soo xaraysid imtixaankoodii upload ku samaysid adoo excel isticmaalaya laakiin certificate-ka iyo natiijadu automatically waxay ka qaadanaysaa xaggan xogta marka la soo upload gareeyo ayay xogta halkan ka imanaysaa marka haddaan ku dhufto ardayda dugsiga sare oo kale liiskoodu waa kan magacyadoodii iyo xogtoodii oo dhammaystiran waa tan manual waad u gelin kartaa waadna soo import garayn kartaa xog adoo ardadii soo qaadaya excel dhammaystiran adoo soo qaadaya marka haddii aan soo browse gareeyo diiwaangelinta ardayda oo kale dugsiga sare aan soo qaaday xogtoodii wuxuu siinayaa briefview page buu siinayaa sheegaya inay isku match garaysan yihiin waxaan xareynaya inay sax yihiin hoos baan u baxayaa waxaan leeyahay xogta iyo xare warsaas buu ku sameynayaa xogtii markaas si fudud ayuu ku xareynayaa oo uu kuu sheegayaa maxay inta record aad xareysay haddii ay wax khaldan yihiin oo kale halkaas ku oranayaa 2 record baa ayaan xareysmin oo khalad ku jira haddii new import dhaho iminka mid cusub uu kuu sheegayaa faylasha lagu ogol yahay inaad ku soo upload gareyn karayso meesha kaas waa diiwaangelinta ardayda sidoo kalena manual waa loo diiwaangelin karaa oo form waa laga buuxbuuxin karayaa haddii loo baahan yahay in laga diiwaangeliyo oo kaas waa manual haddii imtixaanka aan eegno la soo upload gareynayo aan dhahno imtixaankiisa dugsiga sare soo upload garee ardayda hadda aan diiwaangelinay oo kale isagana waa sidii laakiin wuxuu dheer yahay totalkii iyo maadooyinkii iyo wixii oo dhan uu keenay qofku in la soo xareeyo marka kolley dabcan excel baa lagu kaydiyaa kabacdi waa lagu soo upload garanayaa systemka marka isagana import baan leeyahay isna sidoo kale waa soo import garan kartaa xogtii waad gelin karaysaa qaybta labaad ee iyaduna muhiimka waxa weeye inaad verification ku samaysid shahaadooyinka oo qofku ardayga ahaa oo verification ku sameeyo shahaadadiisii oo dugsiga sare oo kale in la hubiyo oo kale marka arday kasta waa la hubin karaa iyadoo loo raadinayo roll number certificate number wax kasta lagu raadin karayo aan filter dhaho aan raadiyo roll numberkaas raadi baan leeyahay keligii ayuu ii soo qabanayaa oo maxay certificatekiisii oo keliya marka dee waa raadin kartaa searchig buu leeyahay sortingkii buu leeyahay waxii o dhan buu leeyahay ribadadii buu leeyahay aad baad u mahadsan tahay waqti ayaan nagu simin intaas inaad ka sii badiso waxaan jeclahay in aad si briefly ama si kooban xogtaadii u heleen guddiga barnaamijku waxau marayaa meeshii ugu xisaab badnayd waxaanu yeedhi doonaa kooxda saaci softy oo iyana halkan iman doona kadibna barnaamijkooda inala wadaagi doonaa inana tusi doona nidaamkii ay wax u sameynayeen haddii ay tahay diiwaangelintii dhirta iyo barnaamijka ay ku caawinayeen wasaaradda deegaanka waxaanu ka hadlaynaa environmentalka ama wasaaradda deegaanka ayaanu samaynay system waxaadna tusi doontaa bal adeegii aad samaysay iyo systemka uu qaabka u shaqaynayo bismillaah sidaan markii hore idila wadaagay systemkan wuxuu ka koobanaanayaa user iyo roles buu yeelanayaa user kastaaba role buu yeelanayaa sida aad sheegteen departmentadii aan idila wadaagnay waxaa ka mid ah HR-kii waxaa ka mid ah assetiskii baa ka mid ah waxaa ka mid ah duurjoogtii baa ka mid ah waxaa ka mid ah halkani expenseski waxaa ka mid ah planningkii xaggan waxa weeyaan waa departmentskii halkana waa degmooyinkii gobolladii haddaan ku soo noqdo halka ugu horeysa oo employee-ga ah koonaha shishe aynu arkayno waxa uu ka kooban yahay filterkaayo ina siinaya inaynu ku baari karno by degmo by gobol iyo by departmentba haddaan qof ku daro already aan halkan kaga daro userkaasi wuxuu ku leeyahay userkaa waa la qaatay halkaa waxaad labkii iyo dhidig iyo numberkiisii halkana waa activeka uu yahay arkaysa
halkana waxa weeyaan shahaadooyinkiisii xaggani waxa weeyaan date of birthkiisii halkaa waxaa laga soo saarayaa wax la yidhaahdo shahaadadiisii baa lasoo upload garaynayaa halkani waxa weeyaan bayrolkiisii lacagta uu qaadanayey halkana waxa weeyaan departmentku yahay ma HR ba departmentku yahay halkani waxa weeyaan gobolka isagoo ku xidhan degmada marka waxay ku xidhnaanaysaa kolba waa dependency bay isku yihiinoo gobolka aad doortid degmadiisii baa soo hoos gelaysa okay waxaan doortay Maroodi Jeex awdal baan togdheer baan doortay kaa baan doortay halkana waxaan gelinayaa waxa la yidhaahdo sawirkiisii okay halkani waxa weeyaan waxaan sameynaynay in qofku userku uu ku soo galo online uu sameeyo verification ama uu fingerprint uu saaro waxaan u baahanahay si ay taasi u hirgasho inaynu userkan uu yeelan karo laba shayba uu ku soo gali karo inuu ku soo gali karo Allahumma salli ala Muhammad in userkin iyo passwordkiisaba uu ku soo gali karo okay already marka hore default wuxuu ku haystaa by user ba default uu sii siinay si hadii uu qofku uu ka degdego u dhamayn karo laakiin qofkaasi ilaa username ka ama loo sheego ma gali karayo okay marka intaasi dhammaystiranto wuxuu siinayaa qofkii submit buu siinayaa dhammaan daatadii waxay u soo galaysaa halkan iyadoo noqonaysa inuu gobol ku eego kuna eego degmooyinkii qaybtana waxa weeyaan attendance-ku halkani waxa ku jira attendance-kaasi wuxuu leeyahay halkani waxa weeyaan time in time out laakiin halka hoose oo ah daatada waxa ku jira waxa la yiraahdo latitude taas oo aan ugu tala galnay kaba soo qaad qofba isagoon iman xaruntii ayuu wuxuu soo galay systemkii buu fingerprint ka soo saaray maxaan ku garanayaa inuu ka soo galay wasaaradii iyo in kale waxaanu sameynay inuu sameeyo latitude isagoo ka soo qaadanaya dhinaca isagoo isticmaalaya locationka GPS-ka qaybtani waxa weeyaan qaybtii asset-ka halkan waxa lagu wada diiwaan gelinayaa dhammaan wixii asset-ka ay leedahay wasaaraddu oo haday noqoto filterkii halkan baa laga filter garaynayaa wixii VI-da wixii nooha wixii dhammaantoodba halkan baa laga wada eegaya dhinacani waa dhinacii duurjoogta expenseski fuel expenseski marka qaybtana waxa weeyaan qayb aynu samayn karno inaynu range ku eegi karno maalinta ilaa inta u dhaxaysa aynu ku samayn karno aad baan kaaga mahadnaqayaa waqtigaagii qaaliga ahaa inaad uga faa'iidaysatay inaad ku soo badhigto barnaamijkaasi waxaan jecelahay in aad ku rajeeyo inaad guulaysato aad baan kusii dhaweynayaa waxaanu yeedhi doonaa kooxdii u dambeysay Somali Coders inay halkan yimaadaan iyana si practical u soo bandhigaan wixii ay sameeyeen systemkayga waxa la yiraahdaa online birth certificate systemkayga wuxuu qabanayaa waa system lagu diiwaan gelinayo carruurta dhalan doonta insha Allah una sameyn doona shahaadooyin dhalasho waxaad haystaan muddo 5 daqiiqo ah waxaad uga faa'iidaysan doontaan barnaamijkeena si practical ah oo la taaban karo inaad na tustaan nidaamkeedu sameeynayeen qaabka dhalashada iyo isbitaalada aad ugu adeegayseen bismillaah anoo ka faa'iidaysanaya waqtigayga oo soo bandhigaya systemkayga oo laba qaybood qayb user soo dhaqaatiirta iyo xogta ka soo gelisay qayb armino laga maamulayo marka anoo imika hore isku dayana qaybta userska hospital kasta username waxa la siiyay password ku soo galo oo loo sameeyay marka haddaan imika dhaqaatiirta kamid oo kale userkiisa oo kale aan isku dayanan galo qaybtan oo qaybtii homekiisa oo qaybta xogta ka arkay xogta soo geliyay uu kana maamulayay xagga ugu horeysa haddaan taabto bottomka wuxuu ku tusayaa xaggaas waa halkii laga soo gelinay addites waa qaybta shahaadada ka soo gelinay imika haddaan isku dayana shahaado soo diiwaan geliyo xaggan waa waqtigu dhashay tusaale ahaan waqti baan soo qaadan karnaa aan oran karnaa xaggan genderkii buu kala dooranayaa xagganna magacii baad gelinaysaa waqtigaan oo ka faa'iideynayaa magaalada ku dhashay oo kale aad sheegaysaa hospitaalku kusii dhashaad sheegi kartaa ilmaha weydkiisaad sii sheegi kartaa ayaa shahaadada loo baahan inaad sheegto fatherkiisi baad sheegaysaa anoo waqtiga ka faa'iideynaya xagana waxaad ku sheegaysaa ilmaha hooyadii oo informationkii loo baahnaa in laga buuxiyo shahaadada
halkay degan yihiin permanent addresska imika ay degan yihiin lagala soo xiriiri karaa hadhow toole ka xaafad ay magaalada aad sheegtay ka degan yihiin baad sheegi kartaa xeraawr oo kale imkelinaya nationality xaggan ku sheegayna weeye dabeetana qofku nationalitygiisa sheegaysaa contact numberkii lagala soo xiriiriya sheegi kartaa number umaad gelin kartaa email hadday leeyihiin maad gelin kartaa dabeetana add details baad leedahay markaa shahaadadii waa la diray detailskeedi markaa qaybta adminkay kusoo dhacaysa markaa qaybta adminka markaynu nimaad aynu soo galno pagekoogii adminka xaggan wuxuu ka hari karaa xogtii lasoo gudbiyey oo dhan xaggan wuxuu ka hari karaa xogtii new applicationska lasoo gudbiyey aan ninka waxbaan lagu samayn verify lagu samayn qaybta la ogolaaday verify gareeyey qaybta reject gareeyey ilaa hadda halkan notificationkii baa ugu soo dhacaya markaa kii ugu dambeeyey marka haddaan sunaal ka sii daaya oo yani check gareeya wixiisii waa kan qofkaa ugu hoosey weeyaan aan soo geliyey still pending statuskiis weeye xaggaasaad furaysaa si aad u ogaato informationkii dhammaystiran hosbitaalku iska soo geliyey numberkoogii magaaladu dabeetana informationkaan soo geliyo dhan baad eegaysaa waa check garaynaynaa informationkii markaan check garayno take action baan leenay dabeetana remark baan ka bixinayna orano yani follow imka kale faalan ku qorna well done yani informationkiisa hadduu saxsanaa dabeetana amba verify ama reject kolba saad u aragto update qofkii markaa waa shahaadadiis waa la remark gariyey markaan uu daawacan karaa qofkii qoladii adminku imkay daawacan kartaa shahaadadii xaggan aad gelaysaa certificate baad taabanaysaa haddaan isku dayo in certificateka ku noqdo dib u galo waka certificate-kii ugu dambeeyeen laysoo verify gareeyey waa kan magacii iyo in la verify gareeyo wakaa haddii la verify gareeyo maad shahaadada heli kartaa dabeetana shahaadada dhamaystir maad view garaynaysaa shahaadada adiga arkaya dabeetana waa print garaysan karaysa halkaa xaggaasaad ka print garaynaysaan dabeetana saasay kusoo baxaysa sidoo kale haddaan ku noqdo xagga adminku waxaa nari sidoo kale wuxuu samayn karaa inuu soo saari karo isu celis ama report inuu usoo saari karo xog usoo saari karo intii lasoo diiwaangeliyey dad dabeetana waxaynu oran karnaa kaasaynu taabananaa bottomka reportka waxaynu oran karnaa 10kii sano 20kii sano u dambeeyey isoo saar dadkii la diiwaangeliyey tiradoodii oo dhan ku saaray applicationadii waqti baynu gelinaynaa tirada xilligaa ka bilaabantay ilaa xilligaasaynu orananaa inuu kale ilaa 2000 baan oran karnaa today oo kale xaggana ka dooran karnaa inagoo waqtiga ka faa'iideynayna inoo harsan dabeetana submit baad leedahay markaad submit garaysay wuxuu inoo soo saaray dhammaan applicationskii 20kii sano inta tirada aad mar walba doortay reportka in lagu saaro oo dhammaystiran inuu kuu soo saaro applicationkii intaasaan guud ahaan kusoo gabagabeyn lahaa applicationkaaga hawsha qabanay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mahadsanyi kooxda Somali Coders barnaamijka tartanka hal-abuurka ee tiknoolajiyadda 2021 waxaa iska kaashaday islamarkaasina barnaamijkan wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Somaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaa halkan wada iman doona dhammaanba tartamayaashii nasiibka oo leh inay ka qayb qaataan barnaamijka tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda waxaan ku soo dhaweynay stage-kan ay wada yimaadaan oo ku kulmaan saddexdii group ee ku tartamay barnaamijka waxaan jeclaynaa fursad iyo saddexda kooxba qof baa u hadli doona inaan weydiiyo dareenkiisa iyo fikirka caawa habeenkan caawa fikradaha kale la tartamaya barnaamijka sida u arko magacaaga adoo ku bilaabay marka bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirashiid xuseen waxaan ka socdaa tiimka saaci softy horta dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay waayo waxaan la tartamayaa rag programmisa oo ila mida kii badiyaaba waa bahdaya waan u hambalyeynaya hadduu iga badiyo saaxiibkay haddaan kaan badiyana saas kale ay ugu hambalyeeyeen waa tahay waxaan jeclay inaad u dhiibto mid kale oo ka mid ah kooxaha kale tartamayey magacaaga adoo ku bilaabay si aad u aragtaa programmada habeenkan caawa halkan tartanka kula tartamayso iyo kaaga aad wado intaba bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la dhahdaa injineer maxamed axmed qaahira barnaamijkanu waa barnaamij aada u muhiima waana barnaamij noo baahnaa maraykanka badan afaano wuxuu dhahdaa waxaanu nahay land of opportunity anna waxaan leeyahay Somaliland lafteedu waxay noqotay land of opportunity ama wadankii fursadda maadaama la soo bandhigayo fikradii iyo wixii ka dhex guuxayay iyo waxyaabaha aad samayn karaysay sidoo kale barnaamijkan wuxuu aad muhiim ugu yahay oo ka soo duxay maskaxa caafimaad qaba taasoo suurtagelinaya in ardaydu jaamacadu dadaalaan oo iyaguna berri ay ku daydaan arrimaha noocan oo kale oo ay sameeyeen programmo kuwan wadno ka si fiican dareenkaygu wallaahi markaan cabiro aad buu fiican yahay dee horumar fiican baan leeyahay dhammaanna waan wada salaamayaa wasaaradda
iyo dadka fikirkan ka soo maxday madaxda qaranka oo madaxweynuhu horeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo bahda t v-gaba aad baad mahadsan tahay waxaan u dhiibi doonaa gruubka kale arday ka mid a Somali Coders saad arkaysaa markaad qiimaysay fikirka soo bandhigtay iyo caawa fikirkada halka lagu qiimeeyo guud ahaan barnaamijka tartanka halabuurka tiknoolajiyadda haddii aan kusoo dhawaado anigoo magacaygu yahay yaxya maxamed yuusuf wallaahi aad baan usoo dhaweynayaa fikradaha aadka u quruxda badan leh walaaladay wadeen waanan usii hambalyeynayaa waxaan leeyahay halkaa kasii wada dadaalkiina kolley wax fiican bay soo bandhigeen dareenkayguna wallaahi aad buu sareeyaa maanta oo kale shucuurtaydu aad bay u kacsan tahay dhammaan guddida sharafta leh iyo marti sharafta inagula sugan hoolkana aad baan u salaamayaa aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiinba waxaan idiin rajaynayaa saddexdiina gruub halkan jooga oo caawa ahaa gruubo aada isugu dhow isla markaasina tartan xiiso badan oo dhex maray in dhammaantiinba aad guulaysataan waxaan sugi doonaa natiijada guddigu halkan ay kaga dhawaaqi doonaan markii ay qiimeeyeen guud ahaanba wixii halkan kusoo bandhigteen daawadayaal waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhammaanba halabuurka tiknoolajiyadda ee barnaamijkan tartankan xisaab badan ka qayb qaatay habeenkan caawana siweele waxay ahayn 3 kooxood oo kala ah Smart Solution Saacid Softy iyo sidoo kale Somali Coders waxay heleen waxay mareen laba wareeg hore oo ahaa in barnaamijkooda ay soo bandhigaan kadibna su'aalo laga weydiiyo su'aalahaas inay iska difaacaan guddida waxyaabo uga baxay waa la qiimeeyay labadaas si jeer markii u dambeysay waxay mareen stage u dambeeyay oo ahaa in si practical oo tusoo taabsiya ay u soo bandhigaan adeegyada ay sameeyeen software-radii ay halabuureen waxaan dib u eegi doonaa aan challenge shaashada halkan dadka barnaamijkan goobjoogka ka iyo inta kale telefishinada kala socota bayna arkaan qiimeyntii hore ee kooxahan ay kala heleen markii u horeysay waxaan ka bilaabi doonaa kooxda Somali Coders waxay heleen qiimeyntii horeysay bandhigoodii hore soo bandhigeen 180 dhibcood marka qiimeyntii labaad lagu sameeyay istifaacina waxa uu kordhay tiro kale waxaana gaadheen 203 halka kooxda kale iyaguna Saacid Softy qiimeyntii horeysay bandhigii horeeyay barnaamijkooda ay soo bandhigeen bay heleen 70% isbedelkii dambe su'aalaha difaacana ay ku heleen 197 halka waxa iska bedelay iyagana dhibco kala u kordhay waxa ugu dambeysay kooxda kale soo Smart Solution oo iyaguna qiimeyntii horeysay bandhigii horeeyay ku heleen 205 qiimeyntii labaad ee difaaca su'aalahana ku helay markii la soo wada geeyay 220 waxa hadhay gunaanadkii iyo gabagabadii natiijadii u dambeysay waxaan eegi doonaa saddexda kooxood oo halkii ay ku kala baxayeen kooxda waxaan u yeeri doonaa kooxda Somali Coders ayaa waxaan jeclay guddida in afarta ka saaro kadibna practical-ka ay sameeyeen iyo barnaamijkaas oo dhammaystiran ugu dambeyntii dhibcaha u dambeeyay siinayaan waxaan ka bilaabayaa Dr. Aydrus kooxda Somali Coders maxaad siisay markaad aragtay barnaamijkoodii iyo bandhigii practical-ka sameeyeen kooxda Somali Coders markan eegay si ay u soo bandhigeen systemkooda iyo su'aalaha ay uga jawaabeen waxaan ku darsaday 5 waxaad ku guuleysay aad baad u mahadsan tahay waxaan eegi doonaa engineer Farhan maxaad ku kordhisay barnaamijkii practical-ka halkan soo bandhigeen abiskooda systemka nidaamkii u mariyeen markaad aragtay markii hore waxaan siiyey konton imikana waxaan ugu daray 5 waa 5 iyo konton laakiin recommendation ahaan waxaan soo jeedin lahaa marka la diiwaan gelinayo ilmaha waxa la gelinayo nationality-giisa iyo magaalada ku dhashay imika waa textbox waa meel wax lagu qorayo marka Hargeysa waxa loo qori karaa siyaabo badan oo kala duwan hadhowna lama ogaan karo imse qofba Hargeysa laga diiwaan geliyay ama nationality oo kale Somalilander maybe in dadka qaar si kale u qoraan maybe qaar inay gaabiyaan qaar dheereeyaan marka recommendation waxa weeyaan drop down wax la yiraahdo jira drop down isticmaal waxa ku jiraan liiska magaalooyinku waxa ku jiraan liiska nationality-yadu marka si hadhow analysis fiican loo sameyn karay waa iga recommendation marka 5 iyo 50 baan ayaan gaarsiiyay aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan Cali Xirsi kooxda Somali Coders maxaad siisay markii hore 43 labana waan ugu daray 45 aad baad mahadsantahay ugu dambeyntii kooxda Somali Coders waxaan u weydiinayaa Injineer Cabdirashiid bal qiimeyntii u dambeysay muxuu siiyay Cabdirashiid qiimeyntii ugu dambeysay waxaan siiyay 60 waxaan ugu daray 5 waxaad ugu dartay 5 aad baad mahadsantahay waxaan jeclahay sacabka u tubtaan kooxdaasi waxay digtaba waxa kor soo kacay markis kala ay heleen dhibcood kor bay soo kaceen waxa ku xigtay kooxda Saacid Softy oo iyagana rajeynayeen dhimacyo kordhaan waxaan ku wareejinayaa Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan kooxda Saacid Softy qiimeyntii hore si maxaa iska bedelay maxaad ku kordhinaysaa maxaa si kaaga baxay anoo wali daba socda qaybtii dhirta waxay ku soo dareen qayb labaad oo duurjoogta ah marka anoo runtii ku dhiiri gelinaya duurjoogtu ma aha xayawaanka waaweyn ee socda xamaaratada kamida shay kasta oo nool dhulkeena
in la diiwaangeliyo ayuu runtii u baahan yahay anoo markaa componentkaana eegay waxaan ugu daray 10 kale waxaana runtii maaragtay kula talin lahaa laba gabay oo nin cali mooga la odhan jiray allah naxariisto awaanaha uu tiriyo midna dhirta midna xayawaanka inay aad u raadiyaan waa dictionary caadiya oo shay kasta oo inta badan maaragtay dhulkeena ku nool ama dhirta ka baxda uu si fiican ugu soo ururiyey marka 10 baan ugu daray aad baad mahadsantahay injineer cabdirashiid kooxda saacid softy maxaa qiimeyntaadii hore aad ka bedelaysaa qiimeyntaydii hore waxba kama bedelin wax dhibca kuma darin wax dhibca oo dheeraad ama siin sidii hore aan ku adkaystay waa tahay Aydruus Doctor qolada teamkaas saacid soft waxaan rajaynayaa talooyinkii ay siiyeen guddidu inay qaataan oo ay focus gareeyaan qaybta dhirta markan systemkoodii eegay waxaan ugu daray 5 marka waxay noqonaysaa 40 noqonaysaa ugu dambeyntii dhibcaha halkan ay ka sugayaan waxa weeye oo guddida ka mid ah injineer Farxaan kooxda saacid softy maxaad ku kordhisay saacid soft horta markii hore 55 bay ahayd 5 baan ugu daray 60 waan ka badin lahaa haddaan arki lahaa sawirro dhir iyo macluumaadka dhirta marka halkaa ilaawina focus gareeya 5 baan ugu daray 60 aad baad mahadsantihiin waxaa jeclaan shacabka loo tumo durtaba dhibcoodii kor bay usii kacayaan weli natiijadii guud maynaan gaadhin waxaan qiimeyntii saddexaad maray doonay iyaguna kooxda so smart waxaan jeclay inaan u weydiiyo xubnaha guddiga halkan fadhiya doctor Aydruus baan ka bilaabi doonaa Aydruus so smart laftigooda dhibcaha hore aad siisay labadii stage hore soo maray stage ugu dambeeyay maxaad ku kordhinaysaa so smart waxay soo bandhigeen system aad u weyn oo qaybta imtixaanaadka iyo wasaaradda focus gareynaya markan eegay systemka ay soo bandhigeen iyo featureskiisa waxaan ugu daray 5 aad baa mahadsantahay engineer Farxaan waxaa jira barnaamij hore oo suuqa ku jira oo la isticmaalo waxaan u soo jeediyey inay waxyaabo badan oo lagaga dooran karo samayn karaan waa barnaamij aan aaminsanahay in uu يعني قيمة بدن ويالن دونا دالكا أرضي ذا يجمع عادها يشركة هذا لفتودا مركي ورا واحد سي شنية كونتون وحنقول دري طبعا وشنية اللحد أدوات ما ستاي عبد الرحمن علي حرسي برامج كا مركي هذا يكتي سو سمارت سو مرتي يا براكتيكال كيسمين محاش كبدلين نتشادي runtii barnaamijka markii aan eegnay waxay soo bandhigeen wax runtii aad u macquula oo hadda imika yar laakiin haddii si fiican looga sii shaqeeyo siyaabo kala duwan iyo dad kala duwan runtii ay isticmaali karaan oo xogo kala duwan oo ku saabsan dadka ardayda iyo statistics-kooda iyo darajooyinkooda oo dad kala duwan isticmaali karaan maaragtay soo bandhigaya marka 5 baan ugu daray waa tahay aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbayaa cabdirashiid maxaad siisay adigu kooxda so smart ugu dambeyn markii aan eegay demonstrationkii ay soo bandhigeen so smart iyo maxaan dhahday barnaamijkooda suu shaqaynayo waxay iga muuqataa in uu yahay barnaamij dhammaystiran oo lagu shaqayn karo kana jawaabay baahidii wasaaradda iyo qaybta imtixaanaadka marka waxaan ugu daray 60 baan markaa 60 dhibcood baan siiyey aad baad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa daawadayaasha barnaamijkan shaashadaha telefishinada kala socda inta iyo hoolka ku sugan xubnaha guddiga tartamayaasha iyo sidoo kale guud ahaanba inta barnaamijka la socota inay halkaa ka dheehanayeen durtaba sida isku kordhisay iyo sida isku bedelayay natiijadii qiimeyntii hore halkan ay ku haysteen kooxda Somali Corders ayaa ka bilaabi doonaa oo iyaga halkan qiimeyntooda ka dhacday markii dhibcoodii u dambeeyay dalaas ugu dambeeyay natiijadii la isku wada geeyay waxay natiijadu soo baxday 220 waxaan iyagana u gudbi doonaa kooxda kale ee saacid softy oo iyaguna qiimeyntii u dambeeyay practicalka laftigooda ay wax iska bedeleen tirooyinkii hore haysteen halka markii hore ay ka heleen 170 markii labaadna 197 ka heleen ugu dambeyntii natiijadii u dambeysay waxay heleen 217 aad baan u hambalyeynaya waxaan u gudbi doonaa kooxda u dambeysay ee ahayd so smart solution oo taagnaa labadii qiimeedood hore meel ah 205 iyo meel 220 ah dhibcood aad ayay u kordheen aad bayna isu bedeleen waxay gaadheen ilaa iyo 245 waan dhammaantiin waan habalinaya saddexdiina tiimba waxaan jecelahay afkooda in xubin guddida ka mid ah kaga dhawaaqi doonto guuleystaha habeenkan caawaa halkan ku guuleystay
دكتور عيدروس أيان شال عاونا سينو وصدح الجروب كلا سارو كدمنا وكل واقع جلسيو دنبي عاونا سيب كله إنه جلسيو قد ما تود بان رجين جلستين عيدروس dhammaan tiimka caawa tartamay waan u mahadnaqayaa muhiimaddu maaha halkan markaa ku tartantaan wixii ay xun yihiin waxa weeyaan muhiimaddu waxa weeyaan systemku mar kasta wuxuu u baahan yahay improvement u baahan yahay in wax laga sii bedelo marka waxaan rajaynayaa inaydan niyad jabin laakiin aydan maxay idinla ka sii wadaan oo aad maxay ahaydey suuqana eegtaan siduu suuq systemkii u geli doono tiimka guuleystay wuxuu noqonayaa smart solutions maxaan ku dooranay waxaan ku badanaa markaynu qiimeynta samaynayno waxaan eegnaa problemka la xalinayo xalkiisa markiiba ma la gaari karaa marka systemka aanu garanno inuu markiiba saameyn ku yeelan karo maxay ahayd bulshada ayaanu dooranaa marka caawa waxaan dooranay smart solutions oo nidhi markiiba xalkooda waa laga inta kale xal degdeg ah ama xal rasmi ay gaari karaan oo halkii u socday ay gaari karaan oo wasaaradda waxbarashada u anfici karaa sababtaasaan ku dooranay laakiin dhammaan guud ahaan tiimiska waan mahadnaqaynaa waa mahadsantihiin aad baad u mahadsantahay Idriis shacabka la tumayaa waxaan jeclahay in gunaanadka gabagabada su-aasha in la wadaagi jirnay xubnaha guddiga professor Mubarak Ibrahim Aar oo ahaa isudubarridaha barnaamijka iyo guddoomiyaha guddiga ayaan ku wareejin doonaa mikrofoonka ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo runtii in agaasimaha waaxeedka u xil saaran barnaamijkan dhinaca wasaaradda waxaan kaloo u mahadnaqayaa Premier Bank waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa maxaa dhalinyarta qiimaha badan ee barnaamijyada aadka u wanaagsan soo bandhigay waxaanan markasta runtii u sheegaya in dhammaantood guuleysteen kol haddaad wax qabsatay oo wax samaysay horta waad guuleysatay taa waa inaad ogaataa in dhiirigelin uman anagu idiin samaynayna dhiirigelintuna mid dhammaanaysa maaha caawa wax su-aalo ma weydiinaya tiimka su-aalihii runtii way ka jawaabeen sidaasaan kusoo xidhaynaa barnaamijkeena aad baad mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa barnaamij loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarta halkudhiga barnaamijkuna waxa weeye in la dhiirigeliyo dhalinyarta hal-abuur kale ee dhinaca tiknoolajiyadda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya halkan aan jeclahay inaan magacyadooda mar kale dib uga dhawaaqo professor Mubarak Ibrahim Aar oo ahaa iskudubarridaha barnaamijka iyo guddoomiyaha guddiga doctor Idriis Maxamed Ibrahim injineer Farxaan Aadan Haaruun Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale injineer Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil oo dhammaantood baa ahaa guddidii kala duwaneed ee halkan waqtiga dheer ku bixisay inay kala saaraan ardaydaasi oo dhammaantoodba soo bandhigay barnaamijyo aad u qiimo badan runtiina aad isugu dhow culays badanna uu ka galay sidii hawshaasi loo kala saari lahaa waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa sawirqaadayaasha barnaamijkan oo kala duwan ah kuwa muuqaalada tabinaya qaybta codadka iyo dhammaanba howlwadnada kale barnaamijka ka qayb qaatay barnaamijka la xiisamada kala mida ka hor inta ku kulmano waa dhammaanba bahdii ka qayb qaatay barnaamijka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 oo ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye